maxay tahay sheekada iyo qisada kabahan ee ilaa shalay aadka loogu dhex wadwado qaybo badan oo ka mid ah social media sidoo kale qaybo badan oo ka mid ah warbaahintuna ay wax ka qorayso shirkadda Balenciaga ee wadanka Faransiiska laga leeyahay ee qaabilsan in ay soo saarto waxyaalaha fashion-ka ah ee la isku qurxiyo sida dharka iyo kabaha iyo waxyaalaha kale ee la isku qurxiyo ayaa waxay soo bandhigtay kabahan adigu markii aad korka ka fiirisid kabahan waxaa laga yaabaa in aad moodid kaba duuga oo meel qashin qub ah laga soo saaray oo qofkii lahaa uu iska tuuray kadib markii uu isticmaalayay muddo 10 sano ku dhow laakiin warku iyo sheekada qisada kabahan sidaas maahan kabahan shirkaddu waxay u soo bandhigtay in la iibsado mar labaad iyo mar saddexaad ayaan ku celinaynaa shirkadda Balenciaga ee wadanka Faransiiska laga leeyahay ee alaabaha fashion-ka la isku qurxiyo soo saarta waxay u soo bandhigtay kabahan in la iibsado kabahan kaliya waxa ay soo saartay 100 bayr oo loogu talagalay dad khaas ah in ay iibsadaan kabahan ayaa waxa bayrkiiba la siinayaa lacag u dhaxaysa $625 ilaa iyo 1700 iyo dheeraad waa kabahan u jeedid laakiin adiga maskaxdaada waxa ku jira waa kaba duuga oo fool xun oo wasakh badan laakiin fashion-ka iyo modelka adduunka halkaas ayuu sii marayaa su'aal yar oo kooban adigu kabahan ma ka bixin lahayd lacag u dhaxaysa $625 ilaa iyo $1700 lacag ka badan fadlan saaxiibayaal waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirto idinkaga codsanaynaa in aad page-keennaga Yamyam Plus aad noo saartaan like haddii aad horey u taxanaydeenna aad muuqaalkan sii share garaysaan si ay ku soo gaaraan muuqaalada iyo dhacdooyinka yaabka leh ee dunida daafaheeda ay warbaahinta caalamku ka qorto waa maasantihiin guuleysta nooli kulantee